بسم الله الرحمن الرحيم maanta dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa gabi ahaanba la soo afjaray ciidamadii dhanka dawladda ka socday oo toddobaadyadii la soo dhaafayba duleedka magaaladaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ka waday dagaal culus oo aan waxba la isku reebanin ayaa gabi ahaanba waxa laga guuleystay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo damaceedii ay ku doonaysay in Gaalkacyo ay ku qabsato sidoo kalena ay uga sii gudubto deegaano ka mid ah kuwa Puntland haddaba waxaynu muuqaalkani ku eegi doonaa wax walba oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo duleedkeeda waxa la soo afjaray ciidamadii BSF-ta ee taabacsanaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa laga qabsaday oo lagala wareegay saldhiggii ugu weynaa ee markaas ay ku lahaayeen koonfurta magaalada Gaalkacyo maxaabiis aad u tiro badan ayaa jira oo markaasi gacanta ay ku dhigeen ciidamada kala gedisan ee dawladda Puntland waxa jira khasaare kale oo dhimasho iyo dhaawacba leh ciidamada Puntland waxa ay xaqiijiyeen in ay soo afjaraan dhaqdhaqaaqyadii toddobaadyadii la soo dhaafayba halkaasi ka taagnaa waxa ayna la wareegeen oo si buuxda gacanta ay ugu dhigeen hubkii faraha badnaa ee halkaasi laga dajinayay wax BSF la yiraahdo kama sii shaqayn doonto guud ahaanba deegaanada Puntland ay leeyihiin ciidamada daraawiishta Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa la qabtay oo gacanta lagu dhigay taliyihii ciidanka gaarka ee booliiska federaalka oo markaasi loo yaqaano Jeed Cornel Cabdiqaadir Shiine ciidanka gaarka ah oo tiro ahaan markaasi dhan 70 ilaa 80 askari oo si gaar u tababaran ayuu watay gacanta ayaa lagu dhigay sawiraantiisa ayaa la soo bandhigay haddaba dagaal saaka waa berigii hore ka qarxay dhanka bari ee magaalada Gaalkacyo ciidamada daraawiishta ee Puntland waxa u suura gashay in si sahlan oo waliba aad u fudud ay u soo afjaraan muuqaaladan aad arkaysaan waa xirada ay ku sugnaayeen ciidamada BSF-ta ama ay deganaayeen waa saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada markaasi dawladdu ay qoranaysay ay ku aruurinaysay waxa jira oo kale warar sheegaya in taliyihii ciidanka BSF-ta uu markaasi iska dhiibay ama uu ku cararay xirada ciidanka danab ay leeyihiin ee duleedka magaalada Gaalkacyo haddaba wax la yaab leh ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee markaasi dhanka Puntland toddobaadyadii la soo dhaafay dawladda Puntland arrintani waa ay ka digaysay war ka jooga ay lahayd laakiin ceebtan iyo fadeexadan ayaa u dambaysay xasan sheekh maxamuud dagaal lama daayo guul darrana kama weynaado waa isku daygii iyo sidoo kale duulaankii Raas Kamboni dhammaadkii 2024 waxa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo dagaalkan shalay galab ayuu soo bilowday oo laba baabuur oo hubsitay isla markaana la gelin rabay dhanka magaalada Gaalkacyo ayaa maleeshiya beeleed aagaas ku sugnaa ay mid ka mid ah baabuurtaasi la wareegeen laakiin maanta dagaalka bilowday ciidamada markaasi ammaanka ee Puntland ayaa weerarkooda iska lahaa ujeedaduna waxay ahayd in dagaalkani la soo afjaro inta uusan ku sii fidin gudaha magaalada Gaalkacyo si xirfad sare leh isla markaana ay aad uga taxadartay Puntland ayaa dagaalkaasi gabi ahaanba loo soo afjaray waliba saacado kooban haddaba wararkii ugu dambeeyay sida ay wax u dhaceen maxaabiista tirada inta ay la eg tahay iyo xilligani waxa soconaya Saciid Cabdullaahi 48 saacadood u qabtay in ay isku soo dhiibaan ciidamada markaasi la khalday ee wali dhaqdhaqaaqa ka wada aagaga magaalada Gaalkacyo isla markaana dhanka dawladda taabacsan ayaan muuqaalkani ku faahfaahin doonaa soo dhawaada muuqaalka noo la gareeyo si share gareeyo oo la wadaaga saaxiibadiin si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahinayeen soo gaaraan aad ayaa u mahadsantiin